kulanti wacan wanaagsan halkani waa Garaa TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa kamid ah madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo sheegay inuu san calaamasaarkiisa ku casuumi doonin madaxweyne Farmaajo oo ugu yeeray inuu yahay nin waqtigiisu dhamaaday isla markaasna cadow ku ajiritaanka dalka Djibouti martiqaadna u fidiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi رئيسل وزراء جمهورية فدرالك الصومالية محمد حسين روبلة iyo madaxweynihii qoraate ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan xasaasi ah ka yeeshay sida loo dhameystiri lahaa heshiiskii mucaaradka iyo ra'iisul wasaaraha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay inuu guulo wax ka oo kala soo laabtay kulamo oo madaxda Afrika kula yeeshay magaalada Kampala caasimada dalka Uganda dibna ugu soo noqday magaalada Muqdisho midowga Afrika oo xukuumadda Soomaaliya ku cadaadinaya in loo ogolaado shaqadiisa in uu guto ergeyga gaarka ee uu soo magacaabay dhexdhexaadinta Soomaaliya oo ah madaxweynihii qoraate ee dalka Ghana iyo mas'uuliyiin ka tirsan beesha caalamka oo madaxda Puntland iyo Jubbaland kala hadlay sidii aan loo keenin lahayn shuruudo kale oo caqabad ku noqda shirarka doorashooyinka ee Muqdisho ka qabsoomaya qodobadaas iyo qodobo kale oo daason ayaad ku daawan doontaan warka Garaa TV meel walba aad joogtaan waqti wanaagsan kulanti waxaan wanaagsan halkani waa Garaa TV fadlan daawada hadda joogta xilligii salaada soo tagay waajibka leh dibna u bilaawina daawatid muuqaalkan kadib markaa soo gudatid waajibka ku saaran aynu ka horeyna madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo calaamasaarkiisu ka dhacay magaalada Djibouti caasimada dalka Djibouti diyaar garow xoogan imika uu socdo ayaa la sheegay inuu diiday in liiska madaxda uu ku casuumayo qaaradda Afrika uu ku daro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee muddaxileedkiisa doorashada uu ku eegay 8 Febraayo waxaa la sheegay in Ismaaciil Cumar Geelle uu arko madaxweyne Farmaajo inuu yahay shakhsi neceb dalka Djibouti isla markaasna waqtigiisu dhamaaday asagoo sheegay inuu ku soo dari doonin casuumada inkastoo ay jiraan dadaallo ay wadaan qaar ka mid ah madaxda dalka Djibouti taasoo ku saabsan in madaxweyne Farmaajo lagu marti qaado casuumada haddana waxaa la sheegay in Ismaaciil Cumar Geelle uu ka doorbidayo Farmaajo inuu ku casuumo calaamasaarkiisa inuu ku casuumo dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa mucaaradka asaga oo kulamo kala duwan halkaas kula yeelan doona Ismaaciil Cumar Geelle dadka uu casuumada u fidiyay ee uu ku casuumo calaamasaarkiisa waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi taas oo ka dhigaysa in madaxweyne Farmaajo iyo dawladdiisa si weyn arintaasi ay dhibaato ugu tahay dhanka dhabarjabka Ismaaciil Cumar Geelle ayaa la aaminsan yahay inuu si weyn uga carooday tillaabooyin isxigay oo ay dawladda Soomaaliya qaaday taas oo ay ugu dambeysay hadal ay warbaahinta u marsiyeen oo ahayd in Djibouti ay tahay cadawga Soomaaliya ee doonaysa in dhabarka ka jabisay dawladnimada Soomaaliya Djibouti waxa ay sheegtay in Soomaaliya dib u dhiskeeda waqti badan ay soo gelisay sidaas darteedna aysan macquul ahayn inay dhibaateeyaan dawladnimada Soomaaliya balse madaxda dawladda federaalka gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo xulufadiisu ay doonayaan inay mareen habaabiyaan howlaha dawladnimada Soomaaliya iyadoo shakhsiyaad gaar ah danahooda ay isticmaalayaan madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa calaamasaarkiisa waxa ka soo dhex muuqan doona inta badan madaxda qaaradda Afrika iyo xubnaha beesha caalamka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu ka qayb galo calaamasaarka Ismaaciil Cumar Geelle waxay u tahay fursad kale oo siyaasadeed aad u weyn waxaana halkaas kulamo gooniyo kula qaadan doona madaxda ka soo qayb gashay calaamasaarka kuwaas oo kala hadli doona qadiyadda Soomaaliland iyo sidii loo taageeri lahaa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay carab weyn ka muujisay arinta ku saabsan in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi lagu casuumo inuu ka qayb galo xafladda calaamasaarka madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle sidoo kale tan halkaasi lagu casuumay siyaasiyiinta Soomaalida oo ay mucaaradka uga horeeyaan Ismaaciil Cumar Geelle ayaa la aaminsan yahay in madaxweyne Farmaajo uu aaminsan yahay inuu yahay madaxweyne waqtigiisu dhamaaday isla markaasna aan lahayn in lagu casuumo xilligan meelaha munaasabadaha waaweynka ee ku saabsan dawladaha iyo siday muhiimka u tahay maadaama uu sheegay in waqtigiisu uu horay u dhamaaday doorashada uu san galin uu ku soo noqday
arrintani waxay sii xoojinaysaa khilaafka u dhexeeya labada dal ee Jabuuti iyo Soomaaliya waxaana la sheegay inay jiraan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dalka Jabuuti oo dadaal xoogan ugu jira in dowladda Soomaaliya lagu casuumo caleemasaarka Ismaaciil Cumar Geelle waxaa la sheegay inuu dadaal xoogan ugu jiro in Farmaajo uusan ka qayb galin casuumaadiisa waxaana ugu yeeray inuu yahay shakhsi doonaya inuu isku diro Soomaaliya iyo sidoo kale Jabuuti oo dad walaalaha muddo badan soo wada jiray waxa uu sheegay Ismaaciil Cumar Geelle dad la kulman ay ka soo wariyeen inuusan ogolaan doonin in Soomaaliya iyo Jabuuti la isku dhifto isla markaasna Soomaaliya aysan ahayn shakhsiyaad xilka haya balse ay tahay dadka Soomaaliyeed oo dhan Ismaaciil Cumar Geelle ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeysay inay abaabul xoogan ka qayb qaadatay kadib markii mucaaradku ay sheegeen in taageero ay ka heleen dhinaca Jabuuti dowladda Soomaaliyana arrintaasi ay warbaahinta u tusisay mucaaradka ayaa la sheegay in taageero xoogan ay ka heleen dhinaca dalka Jabuuti iyadoo sida gaarka baraha bulshada ee loogu taageero dowladda Soomaaliyana si weyn loogu dhaleecaynayo madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo asagu muddo ka badan 20 sano xukumaya wadanka Jabuuti رئيسل وزراء جمهورية فدرالك الصومالية محمد حسين روبلة يمدحوينيه وراتي الصومالية حسن شيخ محمود ayaa ka wada hadlay sida loo sii dhameystiri lahaa heshiisyadii ay gaareen madasha badbaado qaran iyo rئيسل وزراء محمد حسين روبلة heshiiskan oo dhawaan dhacay ayaa salka ku hayay in ciidamada laga saaro magaalada Muqdisho lana sameeyo qorshayaal ballaaran oo la xiriira dib u heshiisiin dhexmarta xukuumadda uu hogaamiyo Roble iyo midowga musharaxiinta oo magaalada Muqdisho markaasi ka wada abaabul dhinaca ciidanka dagaalana la galay dowladda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu hoygiisa ku booqday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxayna isla faaqideen arrimaha doorashooyinka ammaanka dib u heshiisiinta iyo sida loo dhameystiri lahaa qodobada ka haray heshiiskii dhexmaray mucaaradka iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa uga warbaaxshay Xasan Sheekh Maxamuud halka uu marayo dadaalada xukuumaddiisa ee ku aadan doorashooyinka dhameystirka heshiiska amniga guud ee dalka siyaasadda arrimaha dibadda iyo wada shaqaynta uu uga baahan yahay garabyada mucaaradka رئيسل وزراء جمهورية فدرالك الصومالية ayaa sheegay in dawladdu ay wax badan ka qabatay qodobadii lagu heshiiyay inta dhiman ay diyaar u tahay inay fuliso inoo gashahay in wax walba ay kala shaqeeyaan mucaaradku si meesha looga saaro kala aragti duwanaanshaha dib u dhigi kara doorashooyinka iyo horumarka Soomaaliya kulanka oo ahaa mid si weyn dhinacyada kala duwan ay isku weedaarsadeen xaaladda dalka ayuu madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ku tilmaamay inuu ahaa mid xalgal ah isla markaasna hoygiisa uu ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya una doonayo in la sii laba jibaaro wada shaqaynta xukuumadda iyo mucaaradka si loo qabto doorasho xasiloon oo wada jirta Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Maxamed Xuseen Roble oo muddooyinkii dhameeyay la sheegay in ay kulamo kala duwan dhowr jeer yeesheen ayaa ugu dambeyntii kulankooda la sheegay in asafgarad uu ku soo dhamaaday qoraalka aynu ka hadla kulanka dhexmaray Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay inay ka wada sheekaysteen suurtagalnimada wada shaqaynta xilliyada doorashada iyo sidoo kale sidii loo sameyn lahaa wax walba oo dalka ka suurta galinaya xasilooni doorasho loo dhan yahay iyo sidoo kale isqancin Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku amaanay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sida wanaagsan ee uu soo dhaweeyay isla markaasna uu ugu dadaalay sidii Muqdisho xasilooni ay u heli lahayd una waqti badan ku galiyay in dagaaladii Muqdisho la hor istaago waxa ay sheegeen labadoodu inay si dhow uga soo shaqayn doonaan arrimaha doorashooyinka iyo sidii magaalada Muqdisho ammaankeeda loo sii adkeyn lahaa kulankan waxa uu noqonayaa kulankii ugu horeeyay ee aadka u weyn ee dhanka siyaasadda tan iyo markuu ka soo laabtay ra'iisul wasaaruhu booqasho uu ku jiray wadanka Sacuudi Carabiya oo ku soo cumreystay kulamo kala duwan oo la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo dadaalada ra'iisul wasaaraha ayaa ka socda magaalada Muqdisho waxaana la sheegay inuu doonayo in madax kale kulamo gooni la qaato si uu xoojiyo arrimaha wada shaqaynta mucaaradka iyo xukuumadda kalsoonida mucaaradkana loo badiyo arrinta waxay baaraysaa iyadoo qaar ka mid ah mucaaradku ay si weyn u saluugsan yihiin habka ay madaxda dawladdu doonayaan inay doorashooyinka ku maamulaan isla markaasna ay meesha kaga saaraan khilaafaadkii jiray
arrinta ay mucaaradku sida weyn shakiga uga muujiyeen ayaa in dowladdu ay diido ergagii ay u soo magacaabeen midowga Afrika arrimaha dhexdhexaadinta taas oo ay mas'uuliyiinta mucaaradku u arkaan inay tahay mid kaleeto oo sababi karta in la isfahmi waayo mar kaleete madaxda mucaaradka iyo ra'iisul wasaaraha ayaa la filayaa inay kulamo ku yeeshaan magaalada Muqdisho iyadoo 20ka bisha loo balansan yahay shirweynihii dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu guulo wax ka hor kala soo laabtay kulamo uu la qaatay madaxda Afrika kadib markay ku kulmeen caleemasaarkii madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo markii lixaad loo doortay xilka madaxweynaha wadankaasi Uganda madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la kulmay qaar ka mid ah madaxda dalalka Afrika ayaa kala hadlay sida loo xoojin lahaa taageerada dowladiisa ay ka hesho wadamada Afrika ee ay ciidamadu intooda badan ka joogaan gudaha dalka Soomaaliya waxa ay sheegeen mas'uuliyiinta madaxtooyada Soomaaliya in madaxweyne Farmaajo kulamo gooni-gooniyo uu la qaatay dhammaan madaxdii ka soo qayb gashay caleemasaarka ay ku soo dhamaadeen is-afgarad iyo in laga wada shaqeeyo howlaha guud ee qaaradda Afrika madaxweyne ayaa sidoo kale waxa uu kala hadlay dowladahaas inay joojiyaan qaar ka mid oo uu sheegay inay faragelin ku hayaan doorashooyinka Soomaaliya isla markaasna Soomaaliya loo madax baneeyo doorashadeeda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu si gaar ah ula kulmay dalalka ay ciidamadu ka joogaan gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo uu ka codsaday in dowladda si dhow ay ula shaqeeyaan maadaama ciidamada AMISOM ay yihiin nabad ilaaliyaal Soomaaliya loo soo diray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa inta uu ku sugnaa wadankaasi Uganda sidoo kale la kulmay mas'uuliyiinta Soomaalida ee dalkaas isagoo ka codsaday inay taageeraan mar kale ololihiisa doorashada iyo in dowladda ay garab istaagaan dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ururada qaaradda Afrika ka codsatay in lagu garab istaago sidii Soomaaliya dhaqaale ay u heli lahayd maadaama xilligan ay dowladdu marayso heer dhaqaale tii ugu liitay oo uu tilmaamay wasiirka maaliyadda in dowladda oo dhanka dhaqaalaheedu uu saxada tagay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wasiiradiisa iyo sidoo kale mas'uuliyiinta ku welinaya socdaalkiisa waxay sheegeen in kulamadiisu ay ahaayeen kuwa diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo ammaanka guud iyo la helitaanka taageerada midowga Afrika sidii loo heli lahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dadaal xoogan u galay in wadamada midowga Afrika uu ka dhaadhacsiiyo in laga laabto ergagii gaarka ah ee midowga Afrika u soo magacaabeen Soomaaliya taas oo la sheegay Farmaajo uu arkay in siyaasadiisa taageeri karin isla markaasna uu yahay shakhsi dhinaca mucaaradka u janjeera waxa uu dadaal xoogan ugu jiraa sidii uu heli lahaa dowlado badan oo ka tirsan Afrika oo ayagu ku garab istaaga Soomaaliya inay soo ergagaasi ka shaqeyn waxaana dadaal xoogan ugu jiraa sidii dowladaha Itoobiya Eritrea iyo qaar kale oo ka mid ah wadamada Afrika ay wada shaqeyn lahaayeen kasbashada taageero badan oo ku aadan wadamada qaaradda Afrika arrintani waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya isku diyaarinayso doorashooyin muhiim ah oo dalka ka qabsoomaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo marwadiisa koobaad ayaa gudaha dalka ku soo noqday ayagoo bilaabaya kulamo gooni-gooni oo ay la qaadanayaan xubnaha beesha caalamka iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee dowladda loogana hadlayo doorashooyinka iyo sidii loo sameyn lahaa horumar dhinaca amniga iyo doorashooyinka sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya dhinaca madaxtooyada inta badan kulamada dowladda federaalka Soomaaliya waxa xilligan diiradda lagu saarayaa arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadaha isdiidan ee dalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo laga wareejiyay doorashooyinka iyo ammaanka guud xilligan waxa uu raadinayaa meel kaleete oo uu siyaasadda awoodeeda saaro si aysan meesha uga bixin awoodiisa madaxweynenimo isla markaasna waxa uu muujinayaa inuu wali yahay madaxweynaha sida dastuuriga ku fadhiyo filla Soomaaliya taas oo ay mucaaradku ku tilmaamayaan inay tahay wax laga xumaado mucaaradku waxay ku cadaadinayaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu qoro warqad xilgaarsiinta isla markaasna uu sheego inuu san ahayn madaxweyne balse uu yahay madaxweyne xilgaarsiina oo xafiiska sii joogaya ilaa iyo inta laga helayo mid kale oo
bedela oo xafiiska ku yimaada si doorasho arrintaas madaxweyne Farmaajo iyo xulufadiisu waxay u arkaan inay tahay mid niyad jab ku ah dowladnimada waxayna sheegeen in Farmaajo uu ka sii shaqeynayo sidii doorashooyinka iyo ammaanka guud ee dalka uu kor uga socon lahaa isla markaasna uu ka sii shaqeynayo sidii dalka xaaladiisa guud wasagu u maamuli lahaa Midowga Afrika ayaa ku cadaadinaya madaxda dowladda Soomaaliya in aysan ka laaban hor istaagina in uu gudaha dalka Soomaaliya ka shaqeeyo ergeyga gaarka ee Midowga Afrika ay soo magacaabeen dhexdhexaadinta Soomaaliya Midowga Afrika waxa ay doonayaan in ergeygu u yimaado magaalada Muqdisho oo ka qayb qaato isku soo dhaweynta dhinacyada si uu u dhaco shirka 20ka bishan May uu ra'iisul wasaaruhu cilaamiyay ayna door muhiim uga qaataan Midowga Afrika waxa ay doonayaan in la qaato qorshe waliba oo la doonayo dalka xasiloonidiisa iyo doorashadiisa in looga qayb qaato iyagoo madaxda dowladda ku cadaadinaya inaysan caqabad ku noqon in Midowga Afrika ay door muhiim ah ku yeeshaan doorashooyinka Soomaaliya horey madaxweyne Farmaajo u booqday dalka Congo ayaa ka codsaday madaxweynaha dalka Congo in qaaradda Afrika ay ka qayb qaadato xal loo helo doorashooyinka Soomaaliya balse madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuu ka laabto arrintaasi ka gadaal markuu ogaaday inay u soo magacaabeen shakhsi asaga aan garab siinayn balse ay suurtagal tahay inuu sameeyo qorshe dhexdhexaad ah iyo sidoo kale inuu u janjeersado dhinaca mucaaradka waxay siyaasiyiinta mucaaradka ay ku eedeeyeen Farmaajo inuu doonayo inuu shakhsiyadiisa gaarka ka eegto doorashooyinka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in Farmaajo markii hore tan Afrika uu dacwooday haddana uu ka laabanayo Afrika asagoo danihiisa eeganaya taas oo ku tilmaamay nasiib darro aad u weyn waxaana ugu baaqay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda inuu asagu qaato doorka isla markaasna uu gabi ahaanba dhagaha ka fureysto hadallada ka soo yeeraya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhanka kaleetana xukuumadda Soomaaliya uu hogaamiyo Roble ayaa la kulmaysa cadaadis xoogan oo uga imaanaya dhinaca Midowga Afrika taas oo la xiriira in ay soo istaag lagu sameeyo ergeyga cusub ee loo soo magacaabay Soomaaliya ergeygan oo ka shaqeynaya isku soo dhaweynta mucaaradka iyo madaxda dowladda iyo sidoo kale dowlad goboleedyada ayaa marjac u noqonaya sidii xal waara looga gaari lahaa doorashooyinka waxaana sidoo kale la soconaya dhaqdhaqaaqyada arrimaha shirarka doorashooyinka si hadii la isku fahmi waayo uu soo dhaxgal Midowga Afrika ay door uga qaataan waxaa sidoo kale jira in xubnaha beesha caalamka ay madaxda dowladda uga digeen inay soo istaag ku sameeyaan ergeygan oo ah mid Midowga Afrika ay u soo magacaabeen Soomaaliya si doorasho xasiloon looga qabto beesha caalamku waxay ilgooniyo ku hayaan dhaqdhaqaaqyada dowladda Soomaaliya ee la xiriira diidmada ergeygan oo ay u arkaan xubnaha beesha caalamku inuu yahay muhiim marka laga hadlayo doorasho xasiloon oo dalka ka dhacda waxay sheegeen in haddii madaxda dowladda Soomaaliya ergeygan ay diidaan ayna qaban waayaan doorashooyin inay la kulmi doonaan ciqaabtii ugu adkaa taas oo ka dhigan inay xal dooneen madaxda dowladda ee ay doonayaan inay marin habaabiyaan oo kaliya doorashooyinka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo u taagan xilka madaxweynaha mar kale waxa la sheegay inuu si weyn u dhibsaday madaxweynihii horeete ee wadanka Ghana John Mahama oo la sheegay inuu yahay shakhsi muddo badan ku soo dhex jiray siyaasadda isla markaasna dowladda ay ku eedeysay inuu gacan saar la leeyahay xukuumadda Nairobi lama oga sida madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay u yeeli doonaan cadaadiska dhinaca beesha caalamka ee ku aadan in aan la hor istaagin ergeyga gaarka ee Midowga Afrika u soo magacaabeen dhexdhexaadinta Soomaaliya qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamkuna waxay ku cadaadinaysaa madaxda Puntland iyo Jubbaland in aan la keenin wax shuruudo ah ee doorashooyinka Soomaaliya waliisa la gudagalo waxay sheegeen in waqtigu uu sii dhamaanayo dadkuna ay xilligan u dulqaadan la yihiin halka ay Soomaaliya taagan tahay sidaas darteedna ay muhiim tahay in la dedejiyo doorashooyinka iyadoo la raadinayo in dalka ay ka dhacdo doorasho xasiloon waxay sheegeen in shuruudaha badan ay keeni karaan in shirarku ay fashilmaan marka leetana dalka uu qalalaas ka dhaco xubnaha beesha caalamka ee Mareykanka ugu horeeyo ayaa dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland uga digay inay la yimaadaan qodobo hor leh oo doorashooyinka dalka hoos u dhigaya isla markaasna yareynaya rajada laga qabo in dalka ay doorasho xasiloon ka dhacdo beesha caalamku waxa ay sheegeen inay muhiim tahay madaxda Soomaalida ay tanaasul la yimaadaan isla markaasna shirarkooda ay ka dhigtaan kuwa ay heshiiska madambaysi ku gaaraan si xalka guud ee Soomaaliya u noqdo doorasho wada ogol ah ammaan ku dhacda
dhinacyada oo dhan ay ka wada qayb galaan lama oga sida Puntland iyo Jubbaland ay uga maarmi doonaan qaar ka mid ah shuruudaha ay wataan oo ay ka mid tahay arrinta gobolka Gedo oo la aaminsan yahay inay tahay qodobka ugu saameynta badan ee doorashooyinka looga wada hadli doono sidoo kale lama oga sida uu ra'iisul wasaare Roble u maareynayo howlaha doorashooyinka iyo inuu awood xoogan u leeyahay inuu xalliyo khilaafka ka jirta arrinta doorashada gaar ahaan gobolka Gedo oo ay isku haystaan maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya guud ahaan iyo gabi ahaan warkaad ka daawanaysaan Garaati Faageentaas inta ku kulmi doona warkan mid lamid ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.